gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falay ayaa magaalada Ceergabo ka daafuray mashruuc ballaaran oo hay'adda KER ay ka fulin doonto 15 tuulo oo ka tirsan deegaanada gobolka Sanaag. Mashruucan oo socon doona muddo 3 sano ayaa waxa uu ku wajahan yahay arrimaha horumarinta dhaqaalaha, nabadgelyada iyo maamul wanaagga. waxaana munaasabadii mashruucan lagu daafurayay ka soo qayb galay maayirka degmada Ceergabo, isduwayaal, xildhibaano, mas'uuliyiinta hay'adda KER ee gobolka Sanaag, gudiyada tuulooyinka mashruucan laga hirgelinayo iyo marti sharafaad u tiro badan. waxaana ugu horreyn munaasabadaasi ka hadlay Xasan Cabdi Shire oo ku hadlayay afka hay'adda KER oo faahfaahin ka bixiyay mashaariicda wax ku oolka ee hay'adda KER ay ka fuliso deegaanada gobolka Sanaag, kuwaas ay ugu mudan yihiin buu yidhi dhinacyada waxbarashada, biyaha, deegaanka, caafimaadka iyo dhaqaalaha. waxaa isaguna halkaasi ka hadlay madaxa mashruuca Store Maxamed Daahir oo dhankiisa tilmaamay mashruucan iyo waxyaabaha uu ku wajahan yahay. Isitaanka gudiyada iyo isku xidhka degmada sidii loo adkeyn lahaa gudiyada tababar loo siin lahaa, sidii shaqooyinkooda uga wadan lahaayeen, sidii ay gudiyadu uga shaqeyn lahaayeen arrimaha soo darsa la xiriira abaaraha la xiriira iyo dhibaatooyinka soo gaara. marka ujeedada labaad ee mashruuca waxa uu aad ugu takhasusaya isitaanka iyo isku xidhnaanta gudiyada iyo degmada sidii tababar loo siin lahaa. mashruucan waxa uu ujeedahaan takhasus ku siinaya cilmi baadhis loogu talagalay labada ujeedada soo sheegnay iyo sida ay bulshada wax uga qaban karaan. waxaan ognahay waxa uu socon doonaa 3 sano hadii la yiraahdo. maayirka degmada Ceergabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo isaguna munaasabadaas ka hadlay ayaa isaguna dhankiisa hay'adda KER uga mahad celiyay mashruucan wax ku oolka ee ay ka fulinayso tuulooyinka gobolka Sanaag. waxaa iyaguna halkaas ka hadlay xubno aad u tiro badan oo isugu jiray isduwayaal, xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale oo dhammaantoodba ku nuuxnuuxsaday mashaariicda dhaxalgalka ee hay'adda KER ay ka fuliso deegaano badan oo hoos yimaada gobolka Sanaag. waxqabadka muuqday hay'adda KER muujisay guud ahaan gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Ceergabo oo ka kooban 15 tuulo oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Ceergabo. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa inay mashruuca ku soo simaan gobolka, gaar ahaan ay soo gaarsiiyaan degmada. runtii hay'adda KER wax badan oo muuqda bay gobolkan ka qabatay, oo hay'adda kaliya qabatay waxqabad mataanaysan. wajigii hore 20 tuulo ayay 2 mashruuc oo kala dambeeyay oo adeega aasaasiga ah ee bulshada aad loogu baahnaaya ay ka fulisay degmada. iminkana waxay fulinaysaa 15 tuulo oo kale oo iyaguna sidii isugu lamaan. runtii waxqabadkaasi dhammaan wuxuu ku qeexan yahay oo ka muuqda degmada Ceergabo, waana hay'adda kaliya had iyo jeer alle heeganka ugu jirta aadkana ugu heelan inay bulshadan gobolka Sanaag gaar ahaan ku degmada Ceergabo ay horumar muuqda gaarsiiso. gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falay oo gabagabadii munaasabadaas isaguna ka hadlay ayaa hay'adda KER ku sifeeyay hay'adda ugu waxqabadka badan hay'adaha ka howlgala guud ahaanba gobolka Sanaag. waxa kale oo intaasi gudoomiyuhu raaciyay in waxqabadka hay'adda KER uu ka muuqdo badiba deegaanada gobolka Sanaag, isagoo gudiyada tuulooyinka nasiibka u helay mashruucan ku booriyay inay ka faa'iideystaan fursadaha mashruucan uu bixinayo. waxaana gudoomiyuhu shaaca ka qaaday in hay'adda KER ay maamulkooda ku maamuusi doonaan shahaado sharaf ka turjumaysa mashaariicda wax ku oolka ah ee gobolka ka fuliyeen. aad iyo aad waxaan runtii ugu mahad celinayaa hay'adda KER oo intii aan gobolka joogay aan ku arkay mashaariic aad u badan oo ay ka samaysay. meel kastoo aan maro inta badan waxa ay sameeyeen mashaariic horumarineed oo gobolka wax weyn u taraya ayaan ku arkay badiba. sida maayirku sheegay qorsiinayna shahaado sharaf wax weyn u tarta hawsha si laba laaba. waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf, TV-ga qaranka Somaliland, Ceergabo.